wuxuu igu yiri inaan doonaya وأنا قال لكم شرحي أنا قلت 8 سنين بارو تاجني وعقول يا شيخ ماشي بعيد قلي كده في حصص قرب يدك كيف بقول كوير بسكس ده مركح horta xaramka waxa ay geeyay markaas taksiil aan ahaa taksi aan ka shaqeysanaay wuxuu yiri kaba ay qabo markaasaan guri waayo sidoo aan galaya weligay waxaan ilaahay weydiistay ilaahay ima diidin safiir markaas yarka markaan safkii mulugtii madaxda iska daba socod dad iga waaweyn oo qurux badan oo yaani cadaantooda iyo waxa weey dharkooda iyo ku soo tala galay inay galaan xaramka iyo anoo 5 riyaal raadinay aan isdhex galno marka maalintaan isbaranay 15 Shacbaan ay ahayd maalinka Kacbada la furay waqtiga Kacbada marka la furo arday maadaama aan joogno anagu aan waxbarashadeedii ay marka xaramka tahay marka soo la furo waan taagnaan jirnay maadaama ilaa waxbarashadeedii waa meesha ka socota Sacuudigu munaasabad ka soo dhacda dunida hadaan labada ciidood ahayn lama fasaxo ardayda iyo waxbarashada lama fasaxo marka waxbaanu dhiganayno intaaba marka la furay laakiin waan nimaadnaa muddo yar oo kooban weeyaan dhowr saacadood qaadata waxa ka soo qayb galay intaas oo kun oo askari inaad daawateen baa laga yaabaa Kacbada gebigeedaba way xidhaan oo intan Kacbada Hijr Ismaaciilka ilaa maqaam Ibraahimka intaas oo dhan way xidhaan saawiyad bay geliyaan intaas oo askar baa oo saf ku jirta intaas oo saf iska dambeeya oo ilaa 10 saf ayaa taqriiban oo askar ayaa iska dambeeysa oo dirc bashari ay sameeyaan saasay markaa albaab waxa la keenaa salaan gaara oo u gaara Kacbada in lagu furo oo mukeefkiisa wata iyo leerkiisa wana salaan mukeefka Kacbada mukeef ma laha leer gudaheedana ma laha leerkiisana wata muxuu ahaayay Allahumma salli ala Muhammad mukeefkiisana hoos ku wata intaba isaga markaa ku sii deynaya marka reebani sheeba yimaada oo muftaaxa fura taqriiban 10 jeer ayaan markaa taagnaano intaaba aan xaawilay inaan galo Kacbada iimanay suurta gelino ilaahay iima sakhirin wali waxaan ilaahay rajaynaya laakiin inaan insha Allah galo ku riyooday inaan galay insha Allah laakiin ilaahay uu waafajin doona inaan galo insha Allah taala sanadkan ama sanadada dambe ilaahay idinki waxa kale la furaa waqtiga mooyaane madaxda dunida ay yimaada boqorka ka codsada in Kacbada loo furo waa loo furayagana oo intaas oo madaxweynayaal dunida oo Kacbada loo furay baan joogay oo ku arkay isla goobtaasaan ku arkay Allahu naxariisay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf saxna al-madaaf waxaan ku arkay madaxweynayaasha Soomaalida aqlabiyadoodii haday tahay Xasan Sheekh Maxamuud haduu yahay madaxweyne Farmaajo haduu yahay Sheekh Shariif haduu yahay ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliya Allahu Ali Mahdi oo isaguna dhintay Allahu naxariistay Ismaaciil Umar Geelle madaxweynayaasha caalamka oo dhan halkaas markaad ardaytay meesha aad joogto cid walba meesha timaado waad arkaysaa marka maalinta waxaan xasuustaa 15 Shacbaan ay ahayd sanadku 2008 mise 2009 baan garanay sanadku ahaa laakiin intii waxbarashadu ii socotay ay ahayd oo 2009 baan dhameeyay waxbarashadayda markaa Makal Mukarrama 2008 ayaan filayay in ahayd waqtigan Sheekh Xasan aan isku baranay maalinka Kacbada la furay ay ahayd subax taqriiban 8 ilaa 9 inta u dhaxaysa ay ahayd iyadoo la furay Kacbada oo xaawiliyo inaan galo maadaama askartan iyo askartii xaramkoon isbaranay intaas oo sano 10 sano ka badan isna qaanay laakiin amarka sare jira oo la gali karin laakiin marmarka qaarkood ay dad sii daayaan jirto madaxda ay sii deeyso marmar dad muxuu ahaayay ay sii daayaan Sheekh Xasan baa markaa isagoo markii dambe iga sheekeen doona wuxuu Maka u yimid maalintaas isagoo arrimo khaas u yimiyo magaalada Maka iska soo booqday oo dad keenayo reejiduha markaa oo si noqonayo war xaramka Ilaahay ma iskaga soo tukatid dadka buuq arkay ciidankan iyo meesha xaramkii maxaa ka dhaw guduhu soo galay soo socdo anoo meesha taagan buu yimid dad badan buuq Ilaahay markaa dhinacaygu soo istaagay waa been al-Hajar al-Aswad iyo been rugn al-Yamani xaramku afar taktiir afar magac bi kaliya rugn al-Yamani waa kee Soomaalidu jihada Soomaaliya ku beegantay markay soo tukanayso rugn al-Hajar al-Aswad عاد كصباحة جهادي دوية ركن الشامي يركن العراقي بالكلام أما الركنيين الشاميين بال حجر إسماعيل بدأ ركنية كبيرة مركا مقام إبراهيم حجر أسود كيو يوم هو هاي ركن اليماني قد حدوده وهالك مركا ضواف كلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
oo halka la yiraahdo halkaasaan markaa taagnaa khalfana xaggayga dambana mukabariyada halkuu imaamku uu ka soo tukado muxuu ahaayey uu ka soo tukado in waqtiga taraawiixda iyo salaada muxuu ahaayey casar iyo uu ka soo tukado weeyaan halkii anoo taagan buu yimi wuxuu salaamay wuxuu ma Soomaali baad san ku yiraahdaa suu maxaa dhacay san ku Kacbada la furaya oo maxaa laga doonaya san ku maanta waa maalinta sanadkii Kacbada la meelo oo dadkana waa dadkii galay oo maxaa faa'iido ku jirta buu yiri in la galo isagoo markaa garan maayo Kacbada la furayo iyo waxaan laga meeray iyo waxaan protocolkan oo dhan ma fahansan wixii baan markaa u fahansiiyay waxaan ku Kacbada la meeraa nabiga sallallahu alayhi wasallam baa meeray waa lagu soo dhex tukadaa salaadu kuma ansaxda faralkii gudaheeda dad gasho sunnu baad ku tukan kartaa laakiin hadii la dimo inaad ka soo baxda korkeeduna salaadba kuma ansaxdo la faral wala sunna hadaad korkeeda la fuulo markaasuu yiri maxaa fadliga ku jira in lagu tukado markaasaan ku nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ku tukaday oo furayo galay oo ku tukaday maantana dawladaha islaamka oo dhan baa meeyraya dad yaro gaar oo loogu tala galayna way galaan intuu ilaahay u sakhar wuxuu igu yiri inaan galaan doonaya waa ninka nimka u sharaxay aniguna 8 siniin baan taagan waxa uu yahay sheekh meesha cid gali kartaa fi waxa saas qarab yaad ka baqri kawayar biskisda marka inaan galaan doonaya war ma gali kartid iska joog baan ku yiri waxa soo askara ilaashanaysa inaan cid galina wuxuu igu yiri kaba ii qabo markaasaan ku yiri waayo suu waan galaya weligay waxaan ilaahay weydiistay ilaahay ima diidin ilaahay baan weydiisanaya wariina ilaahay galiyo عجيب يقين عجيبة بان رنتي أركي أنا أسكر بمركز دعيست أو إلهي أمبريو لكن هذا أنا أسكرت أنا وأنا اعتمادي إنه يسيد هي وحي توصي شيخ حسن يقين على الله إن الإلهي كوكر صلاته وحكوا إن أنا علي تريد كبيبة نقط حقا بدي حديقة دقاق الله ورقع على البوك لا بدي رقع على سبو تكنية ورقع عدي لبعض مركو مريا خشوع عني قني قصو دكت سيدنا ودون سيلاهي ما دويدي ستة عز وجل صلاة الحاجة كبيه سيبان سكدقة هلك أنا هي لما رقع عوض بعضنا قلع انت أنا لبضي رقع عوض تكنيين إلهي بري أيو شو يسقد الله رقعات بيقصي هوري واتلي مركا وان سلام نقصدي نيكي بمواي نجي عيسى قرن معايو نكن محوهاي اسكا قيرادي بانيدي محوهاي إلهي نهدنا بري حقيت جو هجاك ساكبيسي لو كانه hareerahan iga waxoogay waan sugo mar dambaan arkay soo meel xagga salkii iga dambeysay gadaasheeda ahayd muxuu ahaa nin daabid oo jarara lay wada hadlaya wax yar kadib waxaan arkay ninkii oo ku tukanaya waxa jirta markan Kacbada la xidho xaggan maqaam Ibraahimkii oo ku yaalo baabul Kacba gadaashooda oo u dhaxeeya rugnul Yamaniga iyo rugnul Shaamiga u dhaxeeya sijaayad akhtara la dhigayo dadka galaya marka ayaa lagu kala horaa iyo dawladaha galaya ayaa halkan ku sunnaysta la yiraahdo halkii bay ku sunnay isagoo halkii dadkii ku dhex jiray ayaan arkay oo sunnaysanaya ajiib markaas aad wallahi askarti ayaa lakab askara ayaa noo dhaxaysa waxa yar kadib waxaan arkay isagoo la leeyahay tafadal ya sheekh baabul Kacba isagoo salaanki sii fuulaya ya tafadal ya sheekh Allahu akbar hamd marka sheekho ilaahay khayr asiye maalintaas uu ilaahay waafajiyay horta inuu Kacbada galaysna uu ku soo tukaday markii uu ka soo baxay ayuu yimiday isagoo cuudka ka kamkamaya udkoonka ka baxaya anwaarta wajigiisa durta wajigiisa isbedelay farxad wajigiisa runtii ka muuqato runtii wuxuu sheegay muddo dambe oo sanawaad ka dambeeyay maalintii inay hamiba ugu dambeeyay adduun inaan ka fikiraba maalintii ilaahay ka dulqaaday buu إلهي مركز وكعبة قلعي سيد ولكن سفينة وشيء طبعا حتى ولقي كمان الشيكين طبعا كعبة قليتان كذا وفضل الله سبحانه وتعالى إلهي وبحيه مركا عن سوكا ومركا وربحنت شيخ أنا وشيء انتاس نغفلا لكن أسباب النظام كان أمري عن أقل انبروا أنا الشيخ مركا عن الشيخ سفينة مش سكو أرقني صومالي ما طاهي نعم صومالي أنا هاي شرحي كعبة فائدة ذي هورت حرم وحا إيجي مركز تكسيل أنها تكسي أنك شقي سناي قميص أو كلر أي وجري قميص هذا لغو شقي طبعا أنت مساعدك الظهر كنت لجارن أمبان وحان هلا دد لجينا مكة هذا ندد كأنا سوق هذا أنا ما حرم كمان لها تاجن يا عسكرتها سبوقة سأركي سيدي أنكو قلرت
dhar nidaamsan iyo nin soo qabaystay iyo catare iyo barfuun abadan waxba ima diyaarsaneen ilaah baa ii diyaarsana subxaanahu wa tacaala marka walaalkii arkay kabaha ii qabaan ku marka waa gala bikulli yaqiinan ku hadlo tan uu sheegay ilaahay waxaan weydiistay ima diidin ilaa yawmina hada saas waadana wax alla waxaan niido ku qabto ilaahay aan weydiisto wiligiis ima diidin subxaanahu wa tacaala waxana ma badiida rabbul caalamiin ana kan weydiisanin mooyaane ilaahay wax ma diido raxiim way subxaanahu wa tacaala safiinaan ka tagay وده وتكنا أسجل بركع ومركان تكنا تكش صلاة عم بلاوي وبلاو أسجنا وعن كعب سلامو كعريرين سلام لبقى فداتهين ومشغول بين قوان سواكدون حقيقة أسوي إرادنا لكن واكدون لما بقرنا ودنا مركز قف صومالي عادي ومركبها كيه كوسي هاي كسي بحسن سلام وعن كدون تلاب كان صومري عسكري عن أتجي أرتلا بركع عن تكذي لا إله عن بري سبحانه وتعالى عسكري عن أتجي وحنا دهنيو ضابط كميش مسؤول كاي قدبي مية ماشي أنا سكولهم مال واحد لما هني يدافعوا ده لبرك عن كلا عن كو علي مرة بعد ورقة عن كورة مرك أسألك بالله العلي القدير عربت وداء هذا أسألك بالله وحو هيو قصينا سومالي ده نقرني إله نكون يدل كن جرده سومالي شقيد هذا مات لكن عرب هذا أسألك بالله العلي القدير في هذا الموقف هنا إيه فسحت هنا قالوا حرم كان meel fogna waan ka imid intaasaan ku qoray carabiga mid xogaha askarta kamid ah wadaadnimo ka muuqatay oo dhib waxaan dhahay billahi alayk risaaladan iga gaarsiin daabitkaas meesha taagan nin la wardiyanayo oo gali nin culus wala loo gali karma warqadii loo geeyay ilaahay mahadis ninkii markii warqada loo geeyay wajigu aruuriyay aad buu u naxay man hada alladhi yasalni billah yaa waa inaka codkiisa maqlaa markaan geesan taagana واحد صومالي هناك الله markaas uu dhahay hal soo gudbiyo laakiin meel iga soo gudbiyo kala ma lahan asna waa laga sareeyaa laakiin meel la soo maro ma lahan wuxuu iga galiyay meesha janaa'ista laga galiyo imaamkii cagsi ah dadka meesha ka baxaan ali agmarsi meeshii maray oo cagsan ku galay markaan u tago wuxuu dhahay leesh tasalni billah oo ilaahay maxaad igu weydiinaysaa wallahi inuu qacbadan jecelahay waqti badan meeshan waqti meel fogaan ka imid ina ay fasaxada u baahana markaas aad u qoomay marka Allah yahdiik aad waxa weeyaan axrajtani aad badi murjisay anigina waa liga sareeya laakiin galitaanka lama ogola baakad yara agtiis taalay oo kaarar laga soo bixiyo meelaha soo xiro waayo qof aan kaar wadan kuwi lagu galay isticmaalo isoo magacay ku qornay waayo lama ogola in bidoon kaar iska socotid aniga qamiis iska axwaalaysan iyo imaamada xataa ma wato madaxa koofi ba igu jirto xaalkii waa xaal nin waxa weeyaan 5 riyaalan raadinay المهم وحودا مركا أصو دومانايا وحقيقة وكعبسنا قف كوين أيو هوس يقول حري يلا سيحره وادعي لي لا تنساني في الدعاء صف كان نقل سفير مركا صيار كامرقانو صفكي ملوكتي مدحد يسكدب السعود dad iga waaweyn ay qurux badan oo yaani cadaantooda iyo waxa way dharkooda iyo ku soo tala galay inay galaan xaramka iyo anoo 5 riyaal raadinay aan isdhax galno marka sidii ilaahay uu fuday subhanahu wa ta'ala markaan galay runtii de qol weyn oo fargees taban noocan oo kale ahaa gudaha de waxa ku xirnaa kor waxa ku xirnaa masaabiix faynuus qadiima ayaa ku xiran umaleynaa Allahu aalam iyo sayf iyo waxba ku raacay intaan hadda aan ka xasuusto akhdar fi akhdar aheedo laba tiirun ba ku taalay oo aad u qurux badan iyo derbigi iyo meesha ruqaamka iyo wax lagu sameeyay xajar aswadka saas oo ma muuqdo oo hoos ku jira bas meesha loo tukana ma garanaysid salaadii aan galno marka dad subcinaayo oo isku macnaha dhabarkiis aadinayo marka wiilgeena arkay dadka soo ma fadin marka la tukanayo marka la subcinayo waa la wareegsay mogtahay marka la tukanayo marka subci oo kale oo la sii kala jeesto way qof intuu baxa qof inta lagu umba isku soo aada wax kale ma yaalan qof meeshu arku sujuud المهم meeshan ku tukanay ataxiya sujuud waan ku daa marka meel laga bixi karo ma waan xasuustaa askariga lugtu iga soo qabtay ya xaaj soo jiiday in jiidada marka arkay iska salaam noqso marka ataxiyaad kan boobsiye sideen ku soo baxay marka qasad saas ahayd naam waqtiga alxamdulillah marka intaas ahayd ilaahay fadligiisa ah subhanahu wa ta'ala wallahu qadir ala kulli shay marka ilaahay waxa weydiisato ku diidi maayo adi un weydiiso waxba waxa weeyaan ka dibdeen assalamu alaykum wa rahmatullahi